بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا qiimaha leh meel kastoo aad joogtaan iyo waqti kastoo aad daawaneysaan baa Ramadaan mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ramadaankan kuwiisa dhab ah uga faa'iideystaa inaga dhigo Ramadaankan iyo kuwa kalena Ilaahay nabad iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo sidaan horeyba u sheegnay munaasabada bishan barakeysan awgeed waxaan halkan ka soo gudbin doonaa xalaqaad ka duwan kuwii hore oo aan ugu magac darnay al-iktishaafat al-ilmi fi al-Qur'an al-Karim maadaama bishan ay tahay bishii Quraanka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay in Quraanku uu soo degay shahru ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an bishan waa bishii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri Quraanka ayaan soo dejinay dhexdeeda marka bishan maadaama ay tahay bishii Quraanka wax qasab ah oo laga maarmaanayo in qof kastaba uu Quraanka ihtimaam gaar ah siiyo inaan ku wada cibaadaysano Quraanka siyaabo kala duwan oo Quraanka bishan ihtimaam loo siiyaa waa lagu tartamaa subaxya la akhriyaa caadi baa loo akhriyaa تراويح lagu dukadaa sidoo kale barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inuu noqdo barnaamij noo suurto gelinaya inaan Quraanka ku mashquulno oo cilmiga iyo ijaazaadka iyo asraarta Quraanka ku jirta intii aan ka gaari karno bal inaan insha Allah ta'ala soo bandhigno intii yani fursada iyo waqtiga inoo saamaxdo ma ahan in la soo koobi karo asraarta iyo iktishaafaatka iyo ijaazaadka Quraanka ku jira marka mawduucan baa xad weyn ee barnaamijkan oo aan rajaynayo wax badan laga faa'iidi doono ayaan insha Allah ta'ala uga qayb qaadan doonaa weyneynta iyo maaragtay ku cibaadeysiga Quraanka Kariimka iyo sidoo kale bishan barakeysan ee Ramadaanka runtii Quraanku waa manhaj iyo dastuur Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ummatu Muhammadiyya wax kasta ee noloshooda qusay inay ka egtaan macnaheeda kitaabkan Quraanka ah wax kasta ee adduunka yaala iyo cilmi kasta ee adduunka yaala Ilaahay uu ku dhameystiray subhanahu wa ta'ala isagoo inta la eg wax xajmigiisu inta la eg wax ka maqan adduunka cilmiga la nooc doonaha ahad Ilaahay baa yiri subhanahu wa ta'ala wa anzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay wax kasta waxaan kugu dejinay kitaab wax kasta ay ku cad yihiin wax kasta ee adduunka yaala waxa cilmi adduunka yaalo dhan hadii aan leenahay fahamkii iyo aqliga aan uga soo dhax saaran lahayn way ku yaalaan kitaabka Quraanka nooc doonaha ahad caafimaad technology xisaab physics chemistry waxa adduunka cilmi yaalo dhan kitaabkan Quraanka way ku cadahay laakiin ayaa ka soo saaran kara runtii kama soo saari karno cilmigaas iyo waxa asraar Ilaahay iyo xikmado Quraanka u dhaxdhigay illa Quraanku sida uu u yaalo dhan aan u tadbiiqino oo sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dejiyay sida uu u ratibay iyo inta uu ka kooban yahay dhan inta uu Quraanka cilmi Ilaahay galiyo dhan inaan ka raadino baan uga soo saari karnaa inta badan inagu waxaan ku tacalluqnaa oo aan ku mashquulnaa inaan Quraanka xifdino oo aan lafdiga iyo kalimaadka Quraanka xifdino isla markaana hadaan fahmi karno macnahooda aan raadino laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala lafdiga iyo aayadaas iyo macnaheeda bis cilmiga Quraanka ma aha inta iyo in ka badan baa Quraanka ku jira oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxdhigay marka waxa laga yaabaa markaad aayad akhrido oo aad macnaheedii fahamto inaan cilmi badan kaaga soo bixin aayada iyo macnaheeda bis inaan cilmi saa weyn kaaga soo bixin laakiin markaad nidaamka Quraanka u ratiban yahay aad ku tadbiiqiso in cilmi badan kaaga soo baxa suurtagal maxaan uga jeedaa nidaamka Quraanka u ratiban yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkan min bilow ila dhamaad wuxuu u nadmiyay oo u ratibay qaab sir iyo ijaazaad iyo asraar aad u fara badan ay ku jirto oo qofkii ku mashquulo uu kala soo dhaxbixi karo Quraanku wuxuu ka kooban yahay suurado wuxuu ka kooban yahay aayado wuxuu ka kooban yahay kalimaad wuxuu ka kooban yahay xuruuf ma min xarfin Quraanka ma jiro hal xaraf oo Quraanka kamida illa meesha uu ku yaalo xikmad iyo sir iyo maaragtaan ijaaz buu kula yaalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sir badan buu xarafkaas meeshaas u dhiga macnaheeda aayad kasta numberka ay wadato iyo kelmadaha ay ka kooban tahay iyo xuruufta ay ka kooban tahay markii laga raadiyo cilmi baa kaaga soo baxay aad u fara badan macnaheeda aayad kasta ee Quraanka kamid ah kaliya kelmadaas ama kelmadahaas iyo sentenceskaas iyo macnaha guud ee ka tarjumayaan kaliya ma sidee macno ka weyn ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxgeliyay oo kelmadaha ay ka kooban tahay iyo xuruufta ay ka kooban tahay iyo aayadu raqamka ay leedahay waxa soo dhan waa xikmad rabbaani ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu iska dhigayo hadal uu iska hadlayo oo la iska lambareeyay oo number la iska galiyo mid kasta meesha uu isaga aad kaliya ma wax musaadafa ah ama coincidence ah oo iska dhacayo mid kasta boos uu iska qabsaday ma Ilaahay inuu number aayada boos galiyo oo uu xarafkan boos galiyo xikmad rabbaani ah iyo asraar aad u fara badan baa ku jirta
inteena badan inagu kuma mashquulno oo maaragtaanay inteena badan inagu quraanka si kale u baranaa oo inaan xifdino oo haddaan ugu badanno oo aanba maaragtaanay aan dadaalno aan macnihiisa baranno laakiin intaa un baan inagu aan uga mashquulnaa laakiin waxaa jira culimo mucaasiriin ahoo dambe oo aad ugu mashquulay inay maaragtaanay quraanka asraarta iyo xikmadaha ilaahay dhex dhigay subxaanahu wa tacaala ay kala soo dhex baxaan iyagoo isticmaalaya nidaamkaas raqmiga ama nidaam raqmi fi lqur'aan alkariim yani qaabka quraanku uu ratiban yahay oo aayadaha iyo xuruufaha iyo suuraduhu qaabka isugu xigaan waxaa iyagoo fiirinaya culum aad u fara badan oo culumtan casriga ah hadda adduunka aan ku aragno wax badan oo kamida ay kala soo dhex baxeen iyagoo kaliya isticmaalaya nidaamka qaabka uu quraanku uu maaragtaanay u sameeyay oo ratiban yahay waxa kamida doctorkan Suuriyaanka ah leeyahay doctor Abdidaa'im al-Kaxil runtii waqtigiisa ugu badan galiya in uu quraankan asraar iyo icjaazaad aad u fara badan uu kala soo dhex baxo waana nin aad maaragtaanay muktashif oo wax badan faafiyay oo page-kiisa iyo waxa ka heli kartaan YouTube-kiisa iyo culimo kale oo aad u fara badan waxaan isku dayaynaa marka bal wixii nataa'ijahu ay soo saareen iyo wixii iktishaafaaduhu ay soo saareen oo cilmi ah inaan insha Allah tacaala intii ay maaragtaanay nooga suurto gasha aan halkan ka soo jeedino biidnillah icjaaska ugu horeeya aan soo qaadanayo oo aan rajaynayo inaad aad ula cajabi doonto muuqaalka ku xiga oo aan haddaba meesha u fadhiyo inaan duubo ayaad kala socon doontaa biidnillah albaari insha Allah وبالله توفيق وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته